بسم الله إنا لله وإنا إليه راجعون maanta waxaan joognaa halkii lagu aasayay Allah u naxariistay Umar Cabdulla Shooli waxay ila tahay qof kasta oo Soomaali huwa yaqaan Umar Cabdulla Shooli hadii alla ku rooyay taariikhdiisana cid kasta waxa ku filan magacii looga dhaxbixiyo kooxdii oo ka tirsanay madaalihi hawlada waa birayo ahay magaciisu marka taasuna waxay muujinaysaa inuu ahay haliyay ummadda Soomaaliyeed magac iyo taariikhba ku dhaxle waxaan leenahay bashar waliba waa dhiman ballan weeye geeridu qofna baaqan maaye allow budiisa u nuur ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo ajashii dhamaata ifka joogi mayso cid noolaanaysa ma jirto marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo annagana uu sagadaashiisna fidnayn midaasaan ilaahay ka baryaynaa waxaan ku soo dhaweynayaa halyeeyadii ay soo wada shaqeeyeen oo taariikhda dheer iyo halganka dheer ay isla soo galeen maareeyihii hore abwaan cabdulluux yuusuf xasan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun adaana le xagaagay ahaa noqosha eebow naf waliba inay mowda dhame waan ogsoonahay Umar Cabdulla Shooli muddo badan baan soo wada shaqeynay ilaahay marxuumka ha u naxariisto maanta waa maalintii ugu dambaysay adduunka waa maalintii ugu horreysay aakhiro gurigiisii rasmiga ahaa ayuu tegey Umar ilaahay waxaan ka baryaynaa marti la jecel yahay oo si fiican loo soo dhaweeyo ilaahay inuu ka dhigo amiin ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu qabriga u waasiciyo amiin ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu u naxariisto amiin ilaahay waxaan ka baryaynaa intuu dhalay iyo intay sii dhaleen iyo saaxiibadii intay wada shaqeeyeen ilaahayga casawajallaha inuu samir ka siiyo amiin ilaahay waxaan ka baryaynaa ummadda Soomaaliyeed inuu ilaahay samir ka siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa annaga inuu samir naga siiyo Umar waxaanu isla ahayn kooxdii xoogga dalka Soomaaliyeed waan isaga horeynay waa bari ilaahay waxaan ka baryaynaa muddo badan baan wada shaqeynaa ilaahay casawajallaha naxariis aan la koobi karin inuu siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa naxariis aan la koobi karin inuu siiyo abwaanku waa qeyro saabax aan la koobi karin Allah siiyo Umar Allah siiyo abwaan cabdidhuuxna waa abwaankeena noogu weyn oo geed fadhiga ah dambigiisa Allah dhaafo isagoo jiran buu na soo raacay maanta isagoo xanuunsan oo 3-4 maalmood guriga ka bixin buu na soo raacay dambigiisa Allah dhaafo dhammaanteena Allah isku keen dhaafo walaalkeena Allah cafiyo hal cafiyo Umar Shooli cafiyo masaabax dhalinyaradiisa wiilashiisa waxaan u dardaarmaynaa inay isku xirnaadaan akhul kabiiri kal abi inay midka weyn ka amar qaataan qofka weyn inay ka amar qaataan inay isku xirnaadaan dib inay u shiraan inay midoobaan waa baho kala gaar ah inay hal bah isku noqdaan insha Allah ta'ala saasan rajaynaynaa waa maadsantihiin والله هرتا أبورت الله ونحرسته ودعو جريول دوبتيسان جوجنا أبو تاريخ ديس وفنيت هذا معنا هذا كلا هالله أبو فنك وحب بلا سيال بقول أفرتني سدعدي أو صابري دقمة أفجو يقول شتي كدب وحكم بالعيد ماذا حق الدلك محل كوحدي هرسات كدب كوحدي محل هولد وبري وكان قدم محلها هبل waxaan luguna neesi jiray asoo isku qaban jiray barnaamijkan kadiska oo subaxdii jimcada asoo magaalada marka ka soo tumay oo afgoy subaxdii jimcadan kadiska joogay wasaaradda waxbarashada warfaafinta marka magacaas madaxweynihii hore u bixiyay madaalihi hawlada waa bari marka aabe taariikhdiis kulli macna taariikh la soo koobi karma طبعاً سجال أفر باه هذا جوكتو محل يدري الإنجليز كي ما تدري جوكتو ربيع أحمد جعفر يو أنا بهوين ته يو باه كله أو كده كندا كنول يباه كله أمريكا جرت أفر باه
الله يحرسته أبي وحال شغله إن مدة خلقته هادي dalka hadda soo dib ugu kusugnaay aaba dalka wuxuu ku sugnaay aborta Ingiriiska oo degan Allah u naxariisto dalka wuxuu ku sugnaa 4 sano 2 sano wuxuu ku sugnaa maxalla Itoobiya maxalla Hargeysa magaalada Muqdisho wuxuu ku sugnaa maxalla 2 sano 2 sano kulli xanuun iyo waxa askay hadda macna tood u geeriyoodo way maxalla sokorti iyo dhikarka ku xanuunsan isbitaalada marka dadweynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxa leenahay soo duceeya ama shooli waan soo halgamay abu ama shooli waxa leenahay samir iimaan Allah naga siiyo